وأنتم عاوة إمتين أنت موضوع الله إن أنا صومالي and that's what I do say sir in or at in that are concerned the issues in Somali region. And markasta waxaan u badan nahay qofka xumaantiisa inaan eegno laakiin waxaa sunnada ah markasta in la eego qofka wanaagiisa xumaantiisa la bariyo nabiga wuxuu yidhi man satara musliman satarahu Allah qofka muslimka qariyo ceebtiisa ilaah isagiisa qarinayo waa muhiim inaan ogaanaa Soomaali markaan ka hadlayno dad muslimiin aan ka hadlayno haddaan dad muslimiin aan ka hadlayno marka in markasta xumaantooda la eego waa qalad iban hadduu yahay madaxweyne ahaado hadduu yahay kan ugu hooseeya qashinka aruurinaya so markasta waa in la ilaaliyaa qofka in la xurmeeya bini aadan ahaan loo xurmeeya marka haddaan wanaagiisa eegayna dowladda Soomaaliya waa dowlad iska weyn ah weli xoog ma laha laakiin istaabyo qaar ay qaateen oo waxaa jira improvement ku sameeyay dadka noloshoodii haddii laga soo bilaabo sida ciidamada oo kale waxay bilaabeen inay mishaar iyo siiyaan marka waa arrin positive ah ay dadka noloshooda ay heshay tan kale maadaama dowladda ay xoog saas ay lahayn dad badan oo mucaarad iska jiraan waa normal qof kasta mucaarad iska leh waa in waqtiga siyaasi ay improvement ku sameeyaan dadka qaar waxay ku complain gareeyaan ay ka cawaadaan ay yidhahdaan corruption badanaa jira corruption kan inta buu ka jiraa documentary waxaa shay badanaa jira sida Brussels business oo kale documentary ka waxaa jira ethos la yidhaahdo waxay ka hadlayaan corruption Washington DC waa number one adduunka meesha corruption ugu badan Brussels aa ku xigto waa European Union headquarter marka laakiin marka inta badan corruption laga hadlaayo wadamada oo yar laga hadlaa Nigeria inay ka hadlaan Nigeria waa wadan corrupt ah ama la yidhaahdo Soomaaliya waa wadan corrupt markasta waa jiraa waana corporationada dadka businessyada ku jira waaweyn ayaa corruption ka dambeeya marka tan Soomaali Kenya la eegna isku ka jira laakiin saan ula dagaalami lahayn aan u ducayn lahayn Soomaaliya aan effort aan saar kuma kasintay arrintan looga hadlayo Soomaaliya iyo wanaageesa ku improvement ka lahayn marka just wanaaga ka hadla saxmaanta aan yareen Soomaaliya You can edit garana waxaan soo edit ma loo baahnaa my it's okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي مهندس عاونا هلكان سوء إيمانه خير الله سيو ولاشن فيلسن سيو فرقان رضي وآد مروا بحوشان قعنوا بكجيستا الحمد لله ما أنتنا يا معرفة إلهي مهندس إن كور هذا النوع والأفرتان بلد دولة وحي قوتين وحد أركيسا دولتي هوري مركا الله فيشو waxaa isbedelay dareenka shacabka waxaad arkaysaa inay dowladnimada soo noqotay maxaa ka mid ah dadkii oo ku faraxsan dowladdan oo u arka inay tahay dowlad wax weyn qabatay sida ciidamadii oo kaleeto ninka ciidanka awla dadku istaajiyo oran jiray lacag sii dowladda waxay ma siiso hadda ma dhigi karo account baa loo furay waxay la soo noqdeen awoodda dowladda waxay soo celiyeen xaaladda inay canshuur ka qaadaan lagama qaadi jirin waxay soo celiyeen dekada in lagu soo celiyo gacanta dowladda aviation gacan dowladda lagu soo celiyo waxay ka hadlayaan wasaarad walba inay waddanka u soo noqoto waxaa la abuuray la bilaabay lacag abuurin oo ka soo baxay airportka iyo dekada awal waxaas lama heli jirin waxaa bilowday in lala xisaabtamo wasiiradii iyo madaxda waddanka waxaa bilowday in prime ministerka uu tago magaalooyinka qaarkood iyo guryo iyo xaafado iyo maaragta hoteelo uu tago oo dadkii wareysto waxaa bilowday madaxweynaha in ay kula xiriiraan dadka Facebook iyo Twitter يعني هذا الذي أخذ كره كهل الجنودان ويهلان وحي شيئين إن وربحين تعمل جنودان يهلان وأي كفة إندستان وأي كهل على محاصرة يعني وحيانيه أن كهل بهذا الكهر أفرت بلاد الدولة الجديدة بشكل رئيسي ويسوقات يعني وحي كهل وحاصر وحي كهل الفيسبوك مركب وين لسه حير الفيسبوك اللي لسه حير الموضوع فيسبوك أو خلنا فريبس وإحنا قدر الموضوع ويهلان حتى وحنا قدر إلى مسج كذا إن سي 4.5 لو قبحوا إن الدولة قدران أحزاب أهو أحزابتنا القبيلين إذا رفت كذا أو إن قد السي 4.5 كانوا هذا قبحوا نظام أقرأ إلا هراء نظام أقرأ إلا هراء يعني شرعي وناكسن وداعت يعني سوالف مو يدين يخير وناك دون كم أقرأ لكن الليستي وحي موجيان إن فوضى السعودية إلى بعض يعني وحنا كهلا هذا corruption أجري
dowladihii hore waxaan ka hadlaynay dadka leentooda iyo xasuuqooda anlista hadda waxaad dareemaysaa in ay soo baxeen dad isbeddel doonaya corruption yani maan waddan 30 sano dagaal ka jiray in la yidhahdo corruption ka jira waxaan ka soo tagay meel yani dhimashaan marayay bishii imisa dhimanaysa Soomaaliya maanta waxaan maraynaa 6 wiil oo la dilay Allah u naxariisto oo ka xunahay in dadkii dhan ay ka qaracmeen awalna waxaan maraynay bishii yani ilaa iyo maalin walba 20 qof noqon dhimanaysa marka isbeddel weyn ka socda wadankii insha Allah ta'ala in colaada socota ay soo yaraato يعني dadka ku eedeynaya dawladda mucaaradnimada yani waxay soo wadaan oilka okay oilka haduu yimaado xataa wadanka u baahan inuu dhismo oilka la helo in la marsiyo baarlamaanka in la sharciyeeyo in dawladda ay ku fikirto in wadanka boqolkiiba 60 isaga uu faa'iido 40 beri ay qaataan way u baahan markay keenan hal gaaro hadda barbaro aragtay wax ka dhacay kuwana insha Allah ta'ala baarlamaanka ay sameeyaan asaas baarlamaanka ay ka fiirsadaan dawladda shacabka in ay ka joojiyaan mooshinka sababtoo mooshin marka keenayso inaad ku keentaa wax macquul ah oo sax laakiin wax aan la ogeyn iyo wax soo socdo iman doono ayaan mooshinka si keenaya wax macquul ma aha dadka mooshinka wada waxaan u sheegaynaa in dawladda markay qalad samayso loo digo si ay u saxdo laakiin mooshin uusan noqon waqti wax looga dhumay dawladda waxaan rajaynayaa ilaahay inuu qalbiga isu keeno ilaahay ummadda inuu tawasiyo ilaahay dawladda inuu hagaajiyo وإذا دعينا يسوع إن شاء الله والسلام عليكم maalin wanaagsan khayraadkii hor fadhiyna maanta waan isla inta ka soo qaybgasay shirkan suuqyada ee bishii marka qabto Soomaalidu isugu timaado waxaan maleynayaa qof kastoo Soomaali inay tahay waajib saaran shirkan inuu yimaado si fikradiisa ugu dhiibto instead intuu sheeko fadhiisto oo dhihi lahaa waxaasaa khaldan waxaasaa khaldan nimaad meesha Soomaalidu joogto waxa khaldan sheeg dan sidii loo sixi lahaa ka wada doono qaybta halkan ugu gudbo maanta waxaan maleynayaa in shirku uu ku saabsan yahay dawladda iyo 4 bilood ee jirtay wixii qabsoomay doon insha Allah iyo rajada aan qabno iyo wax aan qabsoomin u baahan in la qabto anigu personally waxaan ahay mucaarad haddii aan wax qaldan arko waxaan ahay muxaafad haddii aan wax wanaagsan arko marka dawladda inaan ku eedeeyo wax kastoo Soomaaliya ka jira inay saxdo بعد كاسي لوصف على المعلم لكن دلال عبدو كم مغنوي والدلال كي وحنا وصيح راوس كم مغنوي هنا نقول هذا كم مغنوي قبل كي وحالي هذا صومال جديد وحنكسي هاي صومال جعل حدي من كستو مسؤول نقضاه جد كي اسكرمر وقت قاعد وكل ما يسافر تسام والنسيب دحر الشقاض إني النقطة برستيج وحدي قاعدين النقطة معه شقاض وإني النقطة في الشقة وحقبت قفك وإنه وحقبتها وحقبت قفك وإنه خوش شقاض بدون تا إنه وحقبته هدول لكن بدورت إنه ملع كهر بريته وما دحبينه وقال لي هنا ذكر معنا وسمعنا بس وحنا بين المسجد كعب ونقول مدحبينه في الماجو أنا بقولك تعاليسا بقولك بديته ولي waxaan kugu taageersanahay geesinimadii shalay aad ku hadasho tiri anigu waa bedelayaa wax wadanka ka jira laguma dhihi kara hal maalin bedel kii macquul ma aha laakiin jidka ma haysaa wixii aad shalay noo sheegtay qorshaha ugu jira runtii in wax isbedeleen waa ogna waa ujeednaa waxaana maanta waxa ugu muhiimsan Soomaali maanta waa ciidan walaalahay kulli askar waa waxay yisaan mushaar baa la siiyaa dawladda hore inaad ka fiican tahay la isku diin maayo لكن عيدا كي وحاول بين شغل قطان إلى مشاق قطان كليه ما هنا عيدا كفر يسوي مشاق قطان يعني نوصل من الناس وحاول على السماء إن عيدا مشاق قطان الشغل قطان وحاول بمركب هنا كل ده هنا عيدا سميسو عاد سميسو كل ده شغل سميسو عيدا قوالة كله والد محمد سؤال كلاه أصلا يا سيدي شايف أن موجود تري يسبدل بالكينة يا إن أكواد كيسنت إن يسبدل كينته حتى هدي أتشقد كوين يسأل ما كل من يسأل هدي هذا أنت أولي سيدي حسن شيخ بعد واشنطن وشيء المسجد محمد وصل قرية اسكتك النشوة مع سنتين
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا رب سلامتين. أنا وأنك وحاسبون مثل هنا السويسيين وحيالها ودن كان كقبسومة وحيالها كقبسومة. سومالي ملكستي جوفته وكل والسياسي استقبلين. أنا ونفتي دولي يكون فكرين إن مرسو يستحقوا كحد لكن ظروفها أول يعني دنتا مقسمتين. أنا الحمد لله ودنك أمريكا كقوم نور معي ودرجينيا الحمد لله وكل ذنا إله نقول إيه لكن دبعت الودن كنا كترت أول إذا هالكعب كانت أنا كهل مركب ويل شاء الله عليه وحكى هذا مرتدى يسأل وعقباش أحيانا وقدرة وحكمنا دولة بدو واسوا أرجنا لكن هذا دولة السعودية لبدو بيلو هذا نمو جالسة مستر فرماجي يغير وقد دلوا وعيه سنسان قد عاد في عينها ومهتمين إلهي أيام هذا سناتي ما هتكسبوا حليها بل وحى قبل السين مرت سد على الخطة سد إلهي قبلها مقطع إذا كو إن السنين إن سوق السنين إن حتى ذلك سوق مرستان إلهي إذن جيدا ومدينة وإني أبتحي مركا وحى في عن waxaad ka shaqeynaysiin wax si rasmi ah oo daacadnimo ah Soomaalinimo ah inaad ku shaqeysaan marka hore taas waxay saaciidi doontaa mustaqbalka Soomaaliya marka hadalkii waxaan ku soo gabagabay doonaa insha Allah hawsha awada Allah idinku gargal yeena dib u dhac ku dhicin arrimihiina yeena dhicin dawladda Maxamed Siyaad Barre dawlad ka balaaran ma jirin لكن وحكوا بعد يهودنتي وهي هذا الأردود تذكر مسمى corruption كباته مركا هل خمسة يجرون ولا يرانو حمسة برتون كسنة هو فعلا لكن تون كسنة دبا روح مالي مركا هذه الفرماجة تاسي يقول تون كهروف فعلا تون وجعلنا هاي هذه ينتلي راقيرة إن سنوين بدنا كنتان لكن يقول عدالة ده abuse dadka dhibaato u sameeyo marka waxa way taas waxay dhibaato keeni kartaa dadkii Soomaaliyeed oo dib dhac ku dhaco mar labaad iyo burbur kale marka burbur kale yani dadkii yaanu horseedin insha Allah saabsidi Allah idinku garab galo wasalaam alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سنتين ومعلن حمل السعودية وجمهورية العرب السعودية في 2030. كل أثناء الدروس اللي كنا صوماليا تقدر تسوي مدي دولة دام سوق صامية صاير ولكن إن شاء الله كل وافع عند الله كنا كنشيء عرفنا كابل. طبعا حتى كل شقينا مع مصلحة. منذ الشهر كنا نجي لنا شقير كل يوم شوينا شيء. عنها مرة كفو حفيزته ومدحنا وضحكنا حشية ولا يوم لكن جوابه يا معناها دم خاص كا وأنا أقول مريم بدأ عام معناها بدأ عام كا وأنا أقول مريم دم خاص كا أنا بدي سكريت ولا أنا حكيس كنا في اليمن أنا معناها كان سمعت دير بزاهي كمراتنا عقدان ما رمضان ما هي أبدا سمع بس وأنا مصلحة عام كقرن بس سبته بعد واحد الإسلام وتمام يسا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة أنا مصلحة عامة يا كبر جدا دي خاصة أنا ضد أن له وعكهم ونكسر كهر بعيد من ضمن أي كورس ما طبعا والله ده مارنا إن معناها مصلحة محمد الله جل هي مصلحة الوجه لكن أنا ضد يدري أنا ضد ماشية الموضوع أنا فينا بريء ضد ماشية مصلحة محمد مصلحة ده مية بدر مصلحة أنا عليها وأنا فينا ما خبر لهم مارنا إن كهذا الله ومصلحة محمد مصلحة ده مصلحة ده زمان أفهم مصلحة شعب يقولوا الإسلام يقولش ما هو مصلحة ده كنا كلام موجود الشعب كان موجود إن شاء الله تعالى وإلى مكان إلى ما تقولها صدق خير الله ما فجيب الحمد لله وذكر على النور يجيب ولا واحد إلا ندعو ما شاء الله دخل يبصر ولا بزوجر إلا ندعو ولا مرة مرة وذكر على النور يجيب على ذلك الله عليه صدق إن شاء الله هذا الحجاب الله نهي بدنا كذا الله عليه دول فعنا الله صدق في عدالة بدنا عدالة واحد عدالة في ما كذا تذكرني عدالة الفيديو الشرعي قفل واحد هو الشرعي وهو الإسلام كان قفل إلى الله يحمل في الحديث الأسير ولا المرة جزاكم الله خير على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلسطين فرقانة هذا أنا كنت معارضة أحد أبوك رأي الجيران بنت له معارضة تيجي هذا الناس هذا المعنى مرة وين الحمد معلومة لله ترتيب هذا هو فرحنا عاو ماشي أسوق الماضي مارتي وحاول كنا كجرا ونجمع الربا أيام بدي ونسينا وفرحنا مرة هذا وحي أكتر إن كده توصل إنه سعته إنك استعوض كرفت إسكجرا مرة قالت يقول ري وحي يقول كرفت الواقع بالكس including Washington DC لكن مارتي ما هنا it's good to have corruption it doesn't matter wherever what country it is لكن أنا أذكرت العقد والسيء قرحيد نوير هذين مركز بدنا حمر جوجا على جام هذا معلومة بقى وقتها هنا اللي things are getting better لنا أمانك مركز كستو هدي حلقة هذا لي مو حلقة هذا لي تو هدي مركز هدي ودعينا إن أنا ورنا وضك إنه مجال ورنا إن دور الله شقين ورنا إن المارت وحلقة من وضك وجعلنا نوصل ورنا هدي وكاس هدي لا يقرب ضربت جيسياشة أو تجي أو لاين أو بوسس قبضة وانا جيسي وأنا جيسي وأنا أنا فولي أنا هلا لك بيانك لو صوص على عروض هذه الوساق حيث لا ودك هي أمان من وجهك مين ميران سؤال هنا عروض هذه عندك حيث ما بينها وكان سماها كتير محط صارت إلهي يديك أنا هاي قرب قلب وادي سود عيني إن إيدك أنا هوش في عوضة السلام عليكم. السلام عليكم.